duhur wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin sabti ah bisha Julaay ay tahay 25 sanadku waa 2020 qorsheegtu waa labadii duhurnimo oo goowa barnaamijkaanu maalinkan maanta idin haynana waxa ugu mudan baarlamaanka sidaan ayuu codeeyay waxa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sida daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsan waa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen xukuumaddii khayre maxay ka dhigan tahay arrintaasi falanqay dheeraad ah baan idinka haynaa barnaamijkan qodobkaas ayaynu si weyn ugu jeexjeexi doonaa nin dalka Singapore dhashay oo qortay inuu basaas u ah Shiinaha halkeesta la isla marayaa iyo xideegaamada Soomaalida ku habsaday iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarina kamid yihiin waa barnaamij ay wada jir soo saareen Cabdulqaadir Yuusuf Cali iyo Xasan Sheekh Umar waxaana ay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil akhiyaare duur wanaagsan dhegeystayaal sidaad nooga barateen qodobadaas oo fidsan weynoo soo socdaan balse aynu ku horreyno wararkii caalamka oo uu maanta Cabdirasaaq Xaaji Catoosh diyaar inoo leeyahay Cabdirasaaq maasan Cabdiraxmaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Catalonia ayaa amar ku bixiyay in la xiro night club-yada habeenkii lagu tunto muddo 2 isbuuc ah waxaase jira cabsi laga qabo inuu kordho oo uu mar kale soo laabto viruska corona oo dalkaasi Spain uu ka mid ahaa wadamadii uu sida xun u aafeeyay magaalooyin ay ka mid tahay Barcelona iyo Madrid ayaa lagu arkay viruska waxaana sidoo kale la joojiyay isu imaatinka isboortiga iyo dhaqanka iyo waliba inay kulmaan dadka marka ay ka badan yihiin 10 qof dalka Kuuriyada Koonfureed waxa kordhay tirada dadka cudurka qaba ee dalka soo galaya maalin walba tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badneyd ee la soo wariyay tan iyo markii bishii Maarso la joojiyay laguna arkay xanuunka dalkaasi 113 qof ayaa la soo warinayaa maanta oo sabti ah in xanuunkan laga helay intooda badanna dadkan waxay ka yimaadeen dibadda waxa kamid ah shaqaale dalkaasi Kuuriyada Koonfureed u dhashay oo dalka Ciraaq ka shaqeynayay oo hadda dalka dib ugu soo laabmay dalka Britain saraakiisha caafimaadka ayaa ka digaya in dadka cayilka badan ee burburan ay yihiin 40% kuwa u dhimanaya viruska corona marka loo eego dadka cayilka caafimaadka qaba caadiga ahna loo yaqaan ee dadkaasi ay caadiga u buuran yihiin daraasad la sameeyay ayaa arrinkani ay ku ogaadeen saraakiisha caafimaadka ee Britain u hadashay 10,000 oo qof ayaa ku banaan baxaya wadooyinka magaalada Khabarovsk ee dalka Ruushka waxayna dadkani ku qaylinayaan xornimo waxay sheegayaan inuu iscasilo madaxweyne Putin waxa jiray banaanbaxyo maalin walba dhacayay taniya markii la xiray barasaab caan ka ahaa dalkaasi Ruushka dawladda Turkiga ayaa weerar culus oo afka ugu jawaabtay dawladda Greek iyo wadamo Yurub kamid ah oo cambaareeyay masjidka Hagia Sophia oo dawladda Turkiga ay dhawaanta furtay caasimadda dalkaasi ee Istanbul afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay hadal uu sidan u dhigay carruurta Yurub ayuu yiri ee la qarribay waxay ahaayeen cunsuriyiin aan baranin casharada taariikhiga ah guddiga caalamiga ee Olombikada ayaa masaxay muuqaal Twitterka la soo dhigay oo muujinayay tartankii Berlin ka dhacay sanadkii 1936 xilligii Naaziga oo ay raacsan tahay sumad hashtag oo muujinaysa halhaysna looga dhigay wadajirku waa xoog muuqaalka ayaa qayb ka ahaa film isxigay oo lagu arkayay holaca astaanta u ah ciyaaraha Olombikada ka hor intaan dib loo dhigin ciyaaraha Olombikada ee Tokyo bisha July ee sanadka soo socota warkiina waa naga intaa aad buu mahadsan yahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee dhageystayaal u diyaar garoobay idaacadeennii duhurnimo oo fidsan aynu ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in golaha codku kalsoonida kala noqday xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre isagoo ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub gudoomiyaha ayaa sheegay in cod la qaaday kadib 170 xildhibaan ay u codeeyeen in kalsoonida lagala laabto xukuumadda halka ay diideen 8 xildhibaan oo kaliya xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada oo joogay fadhiga baarlamaanka ayaa diiday dooda kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyagoo ku tilmaamay go'aanka ridista xukuumadda mid ku timid gudoonka kaliya isla markaana aan sharciyad haysan hadaba xogtii u dambeysay waxa si toos ah khadka ugu jira wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan Ibrahim
cabdiraxmaan dhimbil arrintan waxay ahayd soo boodo lama filaana maxaa yeelay ajandaha kulanka waxa uu ahaa ka doodista doorashada 2021 ajandahaas ayaa shalay loo sheegay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalku in ay maanta ka doodi doonaan warqadii saaka lagu qaybiyeyna isla ajandahaas ayaa ku qornaa ha yeeshee markii dambe guddoonku waxa uu soo bandhigay in doorashada xukuumaddu ay ku guuldareysatay in waqtigeedii lagu qabto iyadoo tashiilaadkii loo baahnaa oo dhan aysan diyaarin islamarkaana ay taasi tahay dhibaato weyn oo ku dhacday doorashada Soomaaliya markii goluhu ama gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Muuse Sheekh Cabdiraxmaan uu sheegay inay tahay maadaama xukuumaddu ay guuldareysatay in codka kalsoonida loo qaado jawigu sidan ayuu ahaa انت في دنك عن تتايا دجيا انت كعامصي حكومة كالسؤالين وعلى نقضي وعلى مدحوينها جمهورية الفدرالية وإنه صادقة حكومة أوده ودن كدورسة إنه قارتيسو فرن كانوا وحريهاي sawaxankaas iyo buuqaas aad maqlaysaan go'aanka gudoomiyaha ka hoos baxaya waxay ahaayeen xildhibaano u sabcinayay go'aanka golahu gaaray iyo sidoo kale xildhibaano kale oo diidanaa go'aankaasi oo u badan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan markii uu golaha ka baxay ayuu xafiiskiisa wariyaasha kula hadlay wuxuuna sheegay sababaha keenay in xukuumadda la rido inay kamid ahaayeen in ay qodobadan ku fashilantay diyaarinta xanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada abti u qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dawlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axzaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku cadeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomida doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13 faqradda 3 sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay haddaba sidaad maqlaysaan qodobada uu gudoomiyuhu tiriyay uu sheegay inay xukuumaddu ku guuldareysatay in ay ballanqaadyadeedii hore ee doorashada ku saabsanaa in ay fuliso waxa uu sheegay in golahu cod u qaaday codkaasina natiijadiisa ay noqotay sida tan guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay haddaba sida aad maqlaysaan ra'iisul wasaare gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub maadaama ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kalsoonidii lagala noqday sida uu gudoomiyuhu uu sheegay laakiin xildhibaan Maxamed Abuukar Islo Ducaale oo ah wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo isla golaha gudaheeda ka hadlayay wariyaashana la hadlayay ayaa sheegay in wixii maanta golaha ka dhacay aanay wax sharciyad ah haysan halkan ka cadeey maanta waxa ka dhacay taariikh xumo waa maalin Soomaalida ummadda Soomaaliyeed maalin mugdi ah in maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2020 oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa ee halkan soo istaagaan in ajende noo qaybeen ajendaas waxa ku qoran ka doodista doorashooyinka 2020 ku qoran marka wuxuu alla qadir anaga waa ka doon waxaan gudoomiye nala hadal xog hoos ah helay
oo in gudoomiyaha uu rabo xukuumadda inuu rido waxaana gudoomiye waxa rabto waa ogolnahay xukuumadda hadaa ridaysna cadeymo keen teeda kale mooshin laga soo gudbiyo dastuurku wuxuu qoraa iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo qof walba xukunka sababta uu ku weynaa ama xukunka xilka sababta loo qaadi karo dastuurku ku qoraya marka sidaa darteed wuxuu ilaah alla qadaray in gudoomiyaha maanta ayadoona hal xildhibaan hadlin oo dood la furin inuu yiraahdo xukuumadda way dhacday marka waxaan si dara ah haduu ku soo qorlaa ajenda hataa xukuumadda cod kalsooni loo qaado ficnaan lahayd inta soo ma qorin halkan wuxuu ku yiri xukuumadda way dhacday haddana meedii isugu yeeray cabdiraxmaan dhimbiil war degdeg ah oo hadda isoo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ay soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynuhu wuxuu muhiim u arkayay midnimada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah tixgelinayana awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka wuxuu aqbalay go'aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay-adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay-adda aasaaska u ah qarannimadeenna madaxweynaha farmaajo wuxuu si degdega usoo magacaabayaa ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalkana ka saarta marxaladan kala guurka siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka madaxweynuhu wuxuu uga mahad celinaya ra'iisul wasaare xasan cali khayre hawkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneyd ee uu la lahaa hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan dabcan warkaas degdega ah ayaa hadda ka soo baxay xarunta madaxtooyada dowladda federaalka haddii aan dib ugu laabano golaha shacabka iyo waxyaabihii maanta ka dhacayay wasiir maxamed abuukar islow ducaale waxa kale uu sheegay in dalka ay doorasho ka dhici doonto waqtigii loogu talagalay in xildhibaanada koranku wuxuu ku furmay sidoo sheegay ma hubo aniga 128 dadka lama tirinin in wax diiday wax maxaa la diiday maxaa la dooda wax la diiday wax la dooda male wax diiday wax dood ma banaqaanabo wax hadla male waa dhacday xukuumadda wax u qaada male cod loo qaada male lama doodin waa sharci daro hadda waa la isaga jeedaa waxa kaamirooyin ay jira adduunka hormaray cadeena la rabaa inay dood dhacday xildhibaano ka doodeen xukuumadda wax lagu soo eedeeyay kadib markaas kadib codsi habsamee loo gasho marka si daraa ka dhacday ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan doorasho ay doorashada waqtigooda ku dhici doonta haddii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo marka doorasho loo diyaar garoobo maasantiin kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga gudaha isla markaana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxamed abuukar islow ducaale oo wariyaasha la hadlayay waxyar uun kadib markii gudoomiyuhu ku dhawaaqay go'aankii ahaa in kalsoonida lagala noqday xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre cabdiraxmaan kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo inala socodsiinayay xogtii u dambeysay ee faahfaahinta ka soo korodhay warka in kalsoonida lagala noqday xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare xasan cali khayre haddaba dhageystayaal balse aanu eegno waxaanu kala soconay warkan degdega iyo taariikhan bal wixii ka soo socday muddooyinkii u dambeeyay waxa stuudiyaha ay kula sugan tiftraha laanta af Soomaaliga ee BBC Muxyidiin Axmed Roble Muxyidiin bal maxaynu kala soconaa arintan waa maasantahay Cabdiraxmaan muddaba warbaahinta gudaha iyo kuwa internetka iyo baraha bulshada waxa lagu hadalhayay wax uu eg xogaa isfahamwaa iyo khilaaf madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeyay ka oo loo okeysiinayay in ay salka ku haysay hanaanka doorasho ee wadanku u galayo muddadan xilligan kala guurka markii dawladda xilligeedii uu dhamaado laakiin guuxan la xiriiray in kalsoonida laga noqdo xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha wuxuu xooggiisii bilowday xalay oo xildhibaanada qaarkood ay bilaabeen arintani inay dadka uga sheekeeyaan oo ay warbaahinada qaarkood wariyaal la hadlaan iyagoo sheegaya in maxaa la yiraahdaa uu jiro qorshe la xiriiraahi in xukuumadda kalsoonida laga noqonayo laakiin filashadu waxay ahayd Cabdiraxmaanow in mooshin inta la gudbiyo laga doodi doono oo ay muddo qaadanayso hanaankani kalsooni kala noqoshada xukuumadda laakiin waxay u egtahay si degdeg ah inay u dhacday iyadoo baarlamaanku maanta intii la ogaa iyo fahamku uu ahaa inay ka hadli doonaan arintan la xiriirta warmurtiyeedkii dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyadu ay ku wada
ka soo wada saareen shirkii dhuusamareeb maalmaha uga socday ee doorashooyinka iyo xilligan golaguurka sida loo maaraynayo la xiriiray marka waxay u eg tahay arrintan kalsoonida lagala noqonayo xukuumadda marka iyadoo mooshin gudoomiyuhu horey uusan usii sheegin xukuumadda ka yaalay in la guda galay oo codayntii sidaa ku dhacday xukuumadduna baarlamaanku sidaa codka ugu qaadeen sida hadda warkii ibraahim uu noo sheegaya degdeg ah ee soo dhacayna waxay u eg tahay madaxweynihii in uu aqbalay go-aankii baarlamaanka ee xukuumadda ay xilka uga tuureen muxuudiin dhanka kale bal waxaa lagu jira xilli kala guura waxaa la isweydiin karaa dhowaan baa dhuusamareeb laga yimi waxaa la sheegayaa in dalku doorasho geli doono xilligeedii ku dhacaysa bal arrintaa maxay ka saameyn kartaa xaaladani waxay markii si loo fiiriyo waxaa imaan karaya xogaa hoolihii socday inay si gaabis ugu yimaadaan maxaa yeele dowladda markan iyo madaxweynaha iyo baarlamaanku waxay aad ugu mashquuli doonaan xukuumadda cusub ee madaxweynuhu uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadda uu dhisi doono iyo baarlamaanka maxaa la yidhahdayey codaynteedii iyo maxaa la yidhahdaa kalsooni siinteedii marka xogaa meesha waxay u muuqanaysaa in dib u dhaci si u iman karayo maxaa sababtoo ah waxaa lagu ballansanaaba in la sameeyo guddiyo ka kala socdaahi dowladda kumeel gaarka xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada inay guddi soo dirsadaan guddiyadaana qayb waxaa ka noqon lahaa wasiirada xafiiska ra-iisul wasaaraha marka arrintii guddiyadaas inay dib u dhac ku iman doono ayaa maxaa la yidhahdaa iyana dhici karaysa markii si kale loo fiiriyana dad baa waxay u arkayeen maxaa la yidhahdaa ra-iisul wasaaraha xoogaa inuu u ekaa inuu isku hayay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xiriirkooda iyo wuxuuda marka taana waxaa la isweydiin karaa iyadana siday u saameyn doontaa xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyey hoolihii iyo ballamihii iyo wixii lagu ballamay sidoodii ayay usii socon doonaa mase gaabis ayaan ku imaan doona laakiin waqtiga ayaa maxaa la yidhahdaa arrintaana sheegi doona wataa xukuumaddii sida gudoomiyaha baarlamaanku sheegay madaxweynuhuna ku raacay in kalsoonidii lagala noqday maxaa xigi kara dabcan waxa ugu horeeya sida madaxweynuhu hadda warmurtiyeedka ka soo baxay lagu arki karayo waa in ra-iisul wasaare cusub lasoo magacaabo xukuumad cusub lasoo dhiso intaynaan idaacadda soo gelin xubno ka tirsan xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano iyo wasiiro aan la hadalna waxay noo sheegayeen in uu shir u socday madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale marka warmurtiyeedkan marka waxay u eg tahay xafiiska madaxweynaha in uu daba socdaahay kulankii u dhexeeyey gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha wixii ka dambeeyey markii xukuumadda codkii kalsoonida loo qaaday marka bal maamul goboleedyadu siday uga falceliyaan ayaa la fila doonaa iyo xildhibaanada baarlamaanka qaarkood oo u ekaa inaysan ku qanacsanayn sida wax u dhaceen wax iyaguna ay ka yeeli doonaan iyo dabcan ra-iisul wasaarihiida kaasi waxa waa fatiriyay laanta af Soomaaliga Muxyidiin Axmed Roble oo inoo sharaxay xaaladdan halka ay ka soo bilaabantay iyo sida xaal ku dambeyn karo bal dhanka kale aynu eegno sharci ahaan iyo si guud sida ay u saameynayso siyaasadii kala guurka ahayd xilligan ay galeysay uu galayay dalka Soomaaliya waxaan arrintaa la falanqeeyay Ibraahim Faarax Bulsaliid oo badanaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya si dhow ula socda Ibraahim bismillaahir rahmaanir rahiim dhimbil waxaad moodaa inay ahayd arrin la sugayay hal cambaaraba khilaaf lagu guul daraystay in hoos loo dhaqo inuu ahaa si kale marka loo dhigo ra-iisul wasaaraha isagana waxaad moodaa xasan cali khayre inuu aad u fahmay danta iyo maslaxadda xukuumaddiisa laakiin uu fahmi waayey danta iyo maslaxadda xukuumadda laga leeyahay haday ahaan lahayd qaybaha kale ee dowladda haday ahaan lahaydba xubno ka tirsan beesha caalamka bal markaaynu eegno dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka Soomaaliyaba wixii maanta baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay maxay u muuqan karaan marka la fiiriyo dastuurka marka la fiiriyo xeer hoosaadka marka la fiiriyo dhaqan ahaan qaabka baarlamaanada adduunka ay u dhaqmaan midnana ku lug leh ma ahan aadna u barbar socday laakiin markaad fiirisid dhaqanka siyaasadda Soomaalida iyo ku dhawaad 30 sano xeer xumada waa wax iska caadi ah asagana hadda ay la gudban tahay inuu libinta ka xigsado wadadii kale uu qaadi lahaana uu fiiriyo xukuumaddan uu fursad u siiyo balinay wixii ay rabtay ka gorgortami karto gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu sheegay in 170 xildhibaan ay codeeyeen in xukuumadda kalsoonidii lagala noqdo halka 8 kaliyina ay ka soo horjeesteen waxa la isweydiin karaa farqi weyn baa u dhaxeeya siday suuragal u tahay marka aynu Soomaaliya ku eegno in iyadoo qodob sidan u weyn oo xasaasi laga doodayo ay tiro saa ugu badan isugu raacdo arrinta cajiibka waxa weeyaan in ay jiraan waxyaabo badan oo la sabayn karo waxa jira tuhun ah asaga iyo madaxweynuhu hal cabaaraba inay ishayeen laakiin ay ka xishoodeen inay si guud oo rasmi ah banaanka khilaafkooda u soo dhigaan waxaad moodaa xiriir hore oo aan wanaagsanayn oo guddoonka baarlamaanka kala dhexeeyay inuu qayb ka yahay waxaad moodaa safarkiisii ugu dambeeyay dooxa laftigeeda in isu soo dhaweyn badan lagu fashilmay marka waxaad moodaa dana badan oo isdiidan in la isaga faa'iidaystay laakiin in baarlamaanka uu xukuumadda gacanta ugu jiray hal cabaaraba may ahayn arrin sir ah
ugu dambeyn xilli kala guura baa lagu jiray dhawaan baa laga soo noqday shirkii dhuusamareeb oo loo arkayay inuu jaangoyn doono xaaladda siyaasadda Soomaaliya in hawl cusub soo korodhay oo xukuumaddii dhammayd imika la leeyahay kalsoonidii baa laga noqday arrintaasi maxay ka saameyn kartaa xaaladihii socday wax badan waxay ku xiran yihiin sida ra'iisul wasaarihii hore uu arrinta u qaabilo haddii uu aqbalo in sidaas uu ku tagana inuu isagu wadadii kale uu mari lahaa uu sii jihaysto xukuumaddan uu fursad u siiyo bal in gorgortankeedii ay sii wadan karto haddii uu kasoo horjeestana waxay noqon doontaa maadaama aanay maxkamad dastuuriya jirin in faragelin beesha caalamka ay soo dhaweyn iyo gorgortan kale hooso Soomaalinimo dib loo maro laakiin si kastaba waxaad moodaa inay mugdi yar oo kale ku ridi doonto hanaankii socday ee loogu ballansanaa in 2 toddobaad gudahood dib la isugu soo noqdo si la isula fiiriyo guud ahaanba xaaladda dalka si gaarana doorashooyinka qaranka ee la filayo horraanta sanadka dambe kaas waxa uu ahaa Ibrahim Faarax Bursaliid oo inoo falanqeynayay bal halka xal ku dambeyn karo iyo si guur sharci ahaanta wixii maanta ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya bal haddaynu eegno waxay dhageystayaasha BBC oo aragtidooda noo soo mariyay bartaana kulanay Facebooka ay ka qabaan sida uu xusocdaan Cabdullaahi Xaaji Xoodi oo jooga Guriceel wuxuu leeyahay warka ka soo baxay mudanayaasha aqalka hoose aanay kalsoonidii kala laabtay ra'iisul wasaare Khayre runtii waxaan u arkaa buu fawdo siyaasadeed oo dalka loo horseeday Soomaalidu waxay jiraahdaa buu baroortu orgiga ka weyn warka mursal far ayaa ku godan yaan dalka fawdo la gelin buu leeyahay dhageysta kale waa Cabdullaahi Xaaji Xoodi oo jooga Guriceel wuxuu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka ee sheegay in kalsoonidii kala noqdeen xukuumadda Khayre waxaan ku tilmaami lahaa maaweelo siyaasadeed ugu darneed ee soo marta dalka intii ay jirtay xukuumadda guud talaabadan waxay fashilin kartaa rajadii laga qabay bi ku leeyahay shirka dhuusa mareeb dhageysta kale wuxuu gudoomiyaha golaha shacabka ee sheegay in kalsoonidii ra'iisul wasaare Khayre waa mid aan waxba ku soo kordhin halkii xaalku dalku marayay waxayna ay tahay buu yiri mid aan la shaacin laga mana doodin sidaas daraadeed aysan waxba soo kordhin dhageysta kale wuxuu xilka qaadista maanta lagu sameeyay Xasan Cali Khayre waxay tusinaysaa in wax badan oo la qarqarnay maanta banaanka la keenay taasina wuxuu yiri waxay baabiinaysaa kalsoonidii lagu qabay dawladda hadda jirta waa in isku tanaasul la sameeyo oo qof walba uusan ka fikirin sidii uu kursiga ugu fadhiisan lahaa kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da oo aragtidooda noo soo mariyay halkaanu ku leenahay Facebook wali dhageystayaal bartaad naga socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba dhageystayaal warka ku saabsan kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre iyo la fahantiisaba wixii ka soo kordha iyo dabcan wararka ugu mudan waxa aad ku dhageysan doontaan idaacadda dambe iyo dabcan bartaan ku leenahay Facebook oo si toosa marba halka wax marayaan aad kala socon doontaan bal haatan aynu eegno dhanka iyo wararka caalamka waxa la sheegayaa in Singapore u dhashay oo qirtay inuu ahaa basaas u shaqeynayay Shiinaha xogtii ugu dambeysay Cabdulqaadir Yuusuf Cali oo haatan isna studio hay'ad sugan ayaanu hayay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ninkan oo lagu magacaabo Jun Weiyeo ayaa lagu soo eedeeyay in shirkadiisa la talinta dhanka siyaasadda ee Mareykanka taasi oo ku taalo dalkaasi uu adeegsaday in uu ku ururiyo macluumaad uu la wadaagay sirdoonka Shiinaha dhanka kale Mareykanka ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay gabadh isqarinaysay oo xiriir la leh militariga Shiinaha Cabdiraxmaan hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Shiinaha uu doonayo in uu xado macluumaadka sirta ah ee Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa isagana ka falceliyay waxa uu yiri hadalkaasi waxa uu sheegay inuu yahay talaabo Mareykanka ka soo baxday oo propaganda ah oo Shiinaha lagu dacaydeynayo khilaafka labadan wadan ee haysta nuclear-ka ayaa cirka isku sii shareeraya iyagoo isku haysta qodobo dhowr ah waxa uu khilaafkooda xoogeystay kadib markii maamulka Donald Trump ay dhowr goor isku qabteen arrimaha la xiriira dagaalka ganacsiga ee labada dal Cabdiraxmaan kaas waxa uu Cabdulqaadir Yuusuf Cali aad buuna u mahadsan yahay bal haatan haddii aan ku sii socono dhanka iyo wararka kale ee ku saabsan deegaamada Soomaalida waxa bariyahanba guud ahaan dalka Geeska Afrika farabaan ku hayay ayax koobaha uu sida baan ugu habsadeen waxa kamid ah guud ahaan deegaamada Soomaalida ayaxan ayaa galaaftay dalagyadii ka soo gooyi jiray beeraha dhanka kale waxa socda dadaalo lagu dagaalamayo waxa ugu dambeeyay dawladda UK maalin ka hor ku dhawaaqday 22 milyan oo dollar oo lagaga hortagayo musiibadan ayna ugu deeqday Soomaaliya haddaba intee ay gaarsiisan tahay dhibaatada ay uu geystay beeraha Dr. Maxamed Xasan oo ka shaqeeya qaybta badbaadada hay'adda qaramada midoobay ee cunnada ee FAO laanta Hargeysa ayaa Axmed Badar uga warramay bal halka xal uu marinayo ayaxu saamaynta ayaxa uu ku yeeshay guud ahaan gobolka wuxuu ayaxu weerar toos ah ku soo qaaday wadamada ay ka mid yihiin Soomaaliya, Uganda, Kenya,
Tanzania, Ethiopia, adigu dhanka barigoo dhan gobolkoo dhan wuu haystaa. Si gaara dhulka Soomaalidu ay degto Somaliland way ku jirtaa qudheeda. Marka si gaara loo soo qaato Somaliland, Puntland iyo Galmudug waa saddexda ugu badan ee weerarka muuqda ku hayo. Goobihii uu ku tarmayay ayaxa ama uu ku biqlayay oo tarankiisu ugu badnaa waa dhulka xeebaha ah sida Saaxil iyo Awdal. Wuxuu saameyn ku yeeshay uu weerar ku qaaday baabi'iyey in badan oo ka mid ah dhulkii xooluhu ay daaqi lahaayeen ama cawskii, geedihii ay cuni lahaayeen, xitaa geedihii aan deegaanka hore loogu aqoon ee soo galootiga ahaa sida geed la yidhaahdo garanwaa isaga qudhiisa aanu daynin uu cunay. Waxaa kaloo uu saameyn xoog leh ku yeeshay dhanka beeraha, uu baabi'iyey geedo fara badan buu caleentii ka cunay oo dhibaatada ugu weyn u geystay waa taa. adigu waxaad ka tirsan tahay hay'adda beeraha iyo cunnada ee FAO loo yaqaano. ma jirtaa qiimeyn aad samayseen oo ku saabsan gaar ahaan saameynta dhanka dalagyada beeraha uu ku yeeshay adoo soo koobaya? Saameynta beeraha uu ku yeeshay aad bay u ballaaran tahay oo Somaliland haddaan soo qaado dhulka wax laga beerto dhanka waqooyiga, galbeedka, bariga meel walba wuu taabtay oo wuxuu dhaawac u geystay wax soo saarkii ilaa uu ka qaylisiyey beeralaydii runtii oo saameyn xoog leh ku yeeshay dhanka beeraha markaan iraahdo iyo xoolahaba. dhulkii xoolaha laga daaqayna in badan buu iyadana ka baabiyey. marka hektaro adigu ilaa in dhowr intaasoo kun oo hektar baa laga hadlayaa waxa uu saameynta ku yeeshay. dhul yar maaha dhulku. marka laga hadlayo qaabka loola dagaalamo ayaxa, qaabkee ugu wanaagsan ayaad is leedahay oo loola dagaalami karaa? laba siyood baa loola dagaalamaa. inta badan markuu deegaanada soo galo dhulka ayaa loo qodaa oo koronkorta yaryar oo aan weli duulin dhulka lagu aasaa. inta hoos loo jeexo dhulka ayaa lagu aasaa. meelaha banaanka marka loola baxana sunta lagula dagaalamaa oo cayaan dilaha la yiraahdo ayax dilaha. ayax diluhu waa mid aan wax yeelayn xoolaha iyo dadka iyo dunyada kale oo ayax uun loogu talagalay. iyadana laba siyood baa loogu dagaalamaa, dhulka iyo hawada. diyaaradda buufisa hawada. dhulkana waxaa looga dagaalamaa laba siyood, mid baabuurtu ay qaado iyo mid dalka lagu qaado. intaba waa lagula dagaalamaa. dowladda Ingiriiska waxay ku dhawaaqday lacag 22 milyan ah in ay Soomaaliya ugu deeqday oo ay doonayso in dhulka Soomaalida lagula dagaalamo ayaxa. ma kula tahay lacagtaasi lacag ku filan xilligan markaad eegtay baaxadda ayaxa ku habsaday Soomaaliya? waayahay haddii aan taa ka hadlo haddaba lacaga fara badan way soo gaareen. waa waxa keenay in diyaaradaha la kireeyo, baabuurta lasoo iibiyo. laakiin marka run ahaan loo hadlo weli ayaxu maaha inuu dhammaado wuu ka fog yahay. waayo waxaa saameyn ku leh ayaxii oo aad u dilaacay, daruuro noqday, hawada sarena duulaya oo u kala gudbaya wadamada. haddanaga ka Somaliland oo kale ka Ethiopia ka soo gala ayaa noo yimaada, ka Yemen wuu noo yimaadaa, kuwa annaga naga tagana way sii baxaan. intaa waxaa dheer beedka ama ukunta dhulka ku aasan oo markay soo biqisho ilaa sanadka dambe sii soconaysa. haddii weliba dhibicdu sida hadda ay ku socoto roobka uu sii socdana uu sii xoog badnaan. marka lacagta iyada ah kolley waxbay qabanaysaa. waan leeyahay meel bay gaarsiin, laakiin waxaa qurux badan haddii loo helo qalab iyo sumo iyo tababaro dheeraada. adoo soo koobaya ugu dambeyntii waqti intee dhan ayaad is leedahay in ay qaadan doonto in laga soo kabsado waxyeelada uu geystay ayaxa? wallahi qorshe howleedka hadda yaala waa ilaa iyo 2021 dabayaaqadeeda meelaha in la gaarsiiyo. markaa unbaa la kala ogaan karaa waxa dhaca. kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xasan oo ka shaqeeya qaybta badbaadada ee hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan cunnada iyo beeraha. wuxuu u waramayay wariyaha BBC-da Axmed Badar. bal haatanna haddii aynu eegno dhanka iyo ciyaarihii wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah in ciyaartoyga Maxamed Salah uu durba shaki geliyay mustaqbalkiisii uu ku lahaa kooxda Liverpool. ciyaartoygan ayaa kooxdaasi kula guuleystay koob badan oo ay ugu muhiimsan yihiin Premier League, Champions League, koobka FIFA World Club-ka iyo koobka kale ee UEFA Super Cup-ka. arrintan ayaa imaanaysa xilli kooxdu ay dhawaan u dabaaldegaysay guushoodii muddo kadib ay ku guuleysteen koobka horyaalada Ingiriiska. dhanka kale waxaa maanta la ciyaarayaa horyaalka dalka Talyaaniga. kooxaha ugu mudan ee wada ciyaaraya waa Inter Milan iyo kooxda Genoa. Napoli waxay la ciyaaraysaa kooxda Sassuolo.
intaas baynu kusoo afmaraynaa idaacaddeenii duhurnimo qodobadaas oo fidsan iyo wararka kale waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna dambe tan iyo intaanu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay